السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعيد السلام دمان أصحابتي إذا قالية أصحابتين قالية أسيتهن أما في عنتهن أما النبات قفتين إلهي إذن كيسة وإذي رجينا أما القصودة دون كجوكتان غير إيه فرحات اللي سود هذه welcome سكسو نقد كلو وناكسن وماموانا إيا مركلة إيا channel كيني دمركة صوماليات سود هذا صاحب يا soo dhawaada welcome isku soo noqod kaloo wanaagsan oo ku faraxsanaa ila tali walaal kale inaan keeno ila tali walaal maasha allah soo dhawaada haynala taliya talawaatii ilaahay dhammaanteen aan ka qayb qaadano tala kalaa inoo wadaa ya soo dhawaada taladan waa talawaatii ilaahay abaaya nala joogto waa iyadana gabdhaha nala jooga le waaye gabdha soo dhiibta waaye abaaya ii dhiibata iyo anigaa leh iyo kheyraadka waa badan yahay soo dhawaada maasha allah walaashaan waxay rabtaa in la caawiyo in lala hadlo in la salaamo in loo duceeyo in la dhiirigeliyo hadday gal daran tahayna in loo sheego hadday gar leedahayna in loo sheego dhammaan ila taliyo dhanaaba saasaba talawaatii ilaahay aniga intaan ka geysan kara si private aan u geysta sida publican waay kan waa ka geysanaa arrinka abaayada ay sheeganayso waa macquul hase yeeshee dhaqankeena la haraayo marka ii soo dhawaada kheyr allah idi siiye inta ila talida ka qayb qaadata mar walba jazaakallah qoraalka kusoo taagtaagsanaysa daqiiqadooda qaaliga gelinayso waa mahadsantihiin anaga dhan ajri xasanaad allaha naga siiyo walaashaan waxay tiri waxaan ahay qof da'yar 22 sano jira dabcan guur waan gaaray tiri gabdho iga da'yaroo guur ku jiraan way jiraan gabdho iga da'roonoo guur ku jiraan way jiraan aniga hadda guura ii diyaaray tiri yar baan muddo sheekaysanayna waxay tiri aniga waa dhibanahay ninkan waa ku dhibanahay shukaansigan wuu iga qalloocday ninkan waxay tiri horta waa ima dhaafaan ima guursadaan guurku waa diyaaray tiri laakiinay tiri nin xayiya xayi hawsha u dhammeynaya ma aha anigii asiga waxaa noqonay tiri halisla meereysto sheekada ha socoto ninkan waxay tiri muddaan isnaqaanaa dhinacna qaraabaan ka nahay ninku ninaan garawaaye maaha nin fiican waaye nin iga qalmo waaye da-da xaggeeda waa okay ani asiga waa isku qurxanahay everything waa dhag waxa uun ka dhimanay tiri ninka oo xayi ii dhaho hawshii aan ku dhaqaaqno adigu habeenada ka midaan waxaan iriya tiri walaalo maadaama arrinkeenii uu iska soo gabagaba yahay haddana maalin kasta waxaan hore u soconaynin uu yahay oo dodoonimaadii nikaaxii wixii hawshii aan lagu dhaqaaqaynin haddana ninku nin shaqaysta waayay tiri oo lama dhahayo ninku ma shaqaysto maanta biri waxay tiri 3 sanaan kusii soconaa wada hadalkeena aniga ahari nafay tiri ninkaan hore iima wado 3 sano cimriga shukaansi ugu madadaalinooya maadaama ay sheeka noo dhexayso oon waxaad wada galnayna inaan ka baxo oon qof kale iyo shukaansigii boos u baneeyo haddii danaan meel kala daydaydana ma ogolo wuu ka dhintaay tiri wuxuu ii ilaashadaa inuu xalaashiisa ahay camal haddana wax uu feermeeyey oo juusteeyey oo xalaaleeyey ma jirto ha yeeshee waxay tiri habeenada ka mida anagoo sheekaysanayno gabdha markaanaan idiin baahana haddaan gal darnaha i qabtaa ayaa waxaan isku soo hadal qaadnay horta in uu guur galay anigana waxay tiri weliga leema soo guursan wuu ogyahay waa u sheegay laakiin waxay tiri ragga maadaama ilaahay afro banee waa iska weydiiyey waxay tiri kaftanuu kaga baxay anigana waxaan rabaa tiri inaan ogaado oo waxaan raalli ka ahay aan ku galo aqoontoose umalihi ragga gabar qarsoodiyay guursan karaan gabar official oo la ogyahay ma jirto dadaan u diray qof hadal saafi ii keenay ma leh wiil fiican waa qof walba ii yiri I feel like waxay tiri dadka ragga Soomaaliyeed in loo heeliyo ma fahanteen ragga in loo heeliyo aan dareemaa tobigaasay tiri ninkan dhinac waa uga ridi waaye ka soo bood hadda iyo dan tobiga labaadoo ninkan ku haystay tiri oo haddana jooko uga baxay waa markaan iriyay tiri walaalo inta arrinkeena aan la gelin oo guur aanan isku gelin aan isbaarno xanuunaada iska jiraan waxba iska jirjiraan aan isbaarno waba ka cirka kasoo dhacay tiri
maanaa xanuunsanay maanaa kanahey maanaa kuwahey weligay ma qoficinay maxaa kaa qaldanay qob iyo qaco ila galay tiri aniga waxay tiri dad badanaa waxaan ka dhageystay sabankan waa leesbaaraa qofka waa inaad ku qanacsan tahay mentaalitigiisa qofka waa inuu okay yahay diini maadaba qofka waa inuu beeskiisa dhisan yahay qofka waa inaad isla farxi kartaan maantoo dhan waxay tiri waa interview sidii home officeka sharciga ka rabto oo kale maantoo dhan wuxuu taagaya haye maxaa haysaa haye xaaladda ka waran haye weli ma soo jeedaa haye cisho ma dukatay haye maantoo dhan waa haye iyo maxaad haysaa aniga waxay tiri yarkaa hamiga oo haydhan boorinu isku bedelay qof ii qalmo oo allay lahay ii qalmana waayahay tiri qof kaloo asiga igaga fiican oon maanta meel ku ogaaya ma jirto muddadad wacad ka dhexeeyana waa nahay faamiliga iigu dhowna way ogyihiin inay ninkaa sheeka noo socoto dhowr mar waa layla kormaray maxaa jira wax ma soo wadi miyaa ninka maxna malaha anaa ma madadaalooday tiri mar anaa waxbarashadii socotay anaa wax meemeeriyo maahane dadka mar hore maxaa dhacay camal calaa kulli xaal in meel cidlaa laygu wado oo sheeko laygu madadaalinaa su-aalihiisa waa badan yihiin kormeerkiisa waa badan yahay midda kale waa ragga dadka qodqodo way qodqodaa intaas wuxuu rabaa inuu iga yara caraysiiyo dadka maaragtay raba inay ku baaraan camal inay dabeecadaada runtaa soo saaraan camal oo igu noqday tiri wiilka waa iska kaa ogaanayay iyo waa ku baarayay iyo waa kugu fiirinayay iyo maaragtay yaa beri haddaad sawjadayda noqonaysid dabeecadahaaga waa inaan wax ka barta iyo meelaan loo baahna inuu ka hadlaaya tiri anigu waxaas ma jecli dabeecadayda ma aha waxaa qofka maanta haddaan wax weydiiyo wixii inuu si toos iiga jawaabaan jeclaa saasuu ii meermeeriya wuxuu u dhaqmaya tiri sidii beri hore baadiye laga sheegaya camal oo gabadha inay like hadalka waaweyn ay ka baxsan tahay camal hadal maldahan iyo hadal sarbeeba iyo waxbuu la ordaahay tiri anigana I had enough with that waxaanba taaganay tiri ma iska daayaa haddana si haddaan fiiriyo waxaan isirahdaa ma adigaa qaldan bal aniga ila talidan waa ku faraxsanaa maamuwaano maxay idinla tahay midda kale ninka yiri halays baara ka booday hadda aniga maxaa meel qaladan isku wadaa miska barakeystaa saas ma ku galaa sida gabdhaha casriga hadda ay sameynaan oo leys wada baaraa miyaan ku dhaqaaqaa soomaalida horta ma isbaartaa mase qaar dhifaha sheegta warkaas xanuunaadaa jiraan maxaan sameeyaa u malayma inuu iga yeelaa ma iskaga tagaa waxaan sameeya ma aqaani tiri ilaa hadda waa yaabanahay anigii baaba yaaba markay gabadha arrinkeeda iyo soo gudbisay midda kale ninka waxay tiri waxaan la yaabanahay hadalka waaweyn iyo isticmaalaya tiri sida inaan aniga ahay qoraa iyo maaragtay abwaan iyo waxaan waaweyn oo ka daba orda aniga may anfacdo maxaan sameeyaa ninkan haddaan u dhahay xataa iga dhaafniyo waxay tiri asiga wuxuu u yahay tiri halqabsi asiga waxay u tahay habdhaqan asigay ugu baxda anigu ila soo doonana waxaan ku iraadahay tiri marmar walaalow dadkaa kale la doono eheladaadii asxaabtaadii iyo kula maldah aniga iga daa waxay tiri hadalka waaweyn markuu ii bilaabo hurda ay qabato telefoonka halaaqiya ay qabato caajisa ay qabto waxay tiri ciila ay qabto ninka dhanoon calafka u niyeystay inaan la qaato nolol hadduu maantoo dhan sidii oday weyn oo meel soo fadhiya aniga warka igu shubo ama uu maantoo dhan leh ma fahanta kelmaddaas haye maanta waxaan kuu wadaa kelmad kaloo culus waa inaa fahan aniga waxay tiri waan qaatir bilaan taagana ninkaana nin ii qalmo oo wanaagsan oo niyeysta wuu yahay seen waxyeelaa gabdho haddaan isqabnay tiri oo ilaahay meel nagu saleeyo waxaan bari war iga daa warkaaga ordoo joornaalada qor iyo wax samee ninkii nin i qaba maaha haddaan dhaho warkaan iga dhaaf wooba xanaaqaaba ninka ku qabo waxay ila tahay tiri anigu hadda inuu i qabahe ma qiyaasi karee laakiin waxay ila tahay ninku hadduu i qabo walaala warkaa iga daahaan dhihi karaa ninaan i qabin war iga daa warka markaan dhaho dagaalka saaxiibtinimadaaba dhacbo waana arkaya tiri dhowr habeenoo ku dhaha walaalow hadalkan waaweyn ee maskaxda daalinaya iga daa haya soo habeen wanaagsan soo bari wuuba caroonahay tiri dhiq was buuxina
laba habeen saddex habeen ka bacdi wadana soo hadlaa soo dhahay maan laysa soo raadinayn habeen hore qadkaad igu banaday si xunaad iila hadashay si aqyaarnimaan kuula hadlay waxaan rabay inaad xagga maskixiyan ah wax kobcido maxaad qof yahay biri ilmihii bari doontaa adigii baanba rabinba inaad iga aqoon kororsatee oo hadalkan qataarkaa oo cidu qaadi karin maan aniga biri ilma bara maamaana ila soo taliya ninkaa maxaa sameeyaa si xayi ii doonimaa oo ii guursamaa wax brograam oo dejisan oo guuro ma leh waa kaa sidii helikobterta igu kormeeraysanaya habeenka saqadka iigu dhex ballansan hadalku waa hadal qataarahoo qarafoon cidu rabin anigana waxyaabahaas ma jecli maamaha ama okay waday tiri gabadha waxay tiri maamaada okay aan ku ahay iyo waxyaabahan kaloo halqabsiga laakiin hadalka waxay tiri sarbeebta iyo si dadban wax layskugu sheego aniga iguma baxdo mana aqaano waygaga badya wuuna ila daba taagan yahay taas waxaaba iiga daranba aan isbaarnana waa ka booday ma soo guursatay waa ka booday wax guuroo ii haaya male iimaanka maankiyaabaha ku dhuuqsado ninkaa ma ka tagaa mase walaalayaal waa ila talinaysiin oo qodaanka maraad ii sheegaysiin meeshaa idinla fadhiyaaya aboo ila talida waa soo kululaate ya waa idii sheeg shukaansiga inuu qatar yahay alxamdulilah dheh haddou ninkuu qabo oo maanta shukaansi oona qoorta kuugu jirin believe me been maaha in la daacdo la halaaqyoodo la hurdoodo neerfis la qaado hadduu ninku qaabdarayaa kula sheekaysana oo hadalkuna yahay hadal 80 jir hadal waayeel interview aan dhammaanin aniga waa soo arkay mana jeclaysan wallaahi dhowr qof waxaan ku idhahdaa iga raaliho idhaaf waageygii waayo qaabdaro maanta oo dhan waxaa lagu weydiinaa interview qabiilkaaga abtiriskiisa hebelo abtiriskiisa magaalooyinka Soomaaliyeed ma sharciyaan wadan ka rabay aniga talo markaan magaalooyinka ka hadla magacooda meeqa taqaanaa maxaa ka aaminsan tahay shukaansiga waa hard inta ku jirto Allah u fududee habriire macaani waxaan ku dhihi lahaa gabdhihina waa kuwaana talawaatii ilaahay haddii marka ninkii sidaa qiyaastay laba qof oo isku qalanta aad tihiin asigina uu aad ugu dhaga adag yahay inuu isla quman yahay habree break ka qaada relationshipkiisa u naso meermeeri isxayeysi telefoonka baa ka qabanin maalintuu nafta u yaabo calafadaa isku leedihiin istighfaarna ka duko maalintuu nafta u yaabo waxaa tira walaal imaqal hadalkan aad u malaysid inaad maqaasiin ka soo guraysid ee qaabdarada culayska ee Soomaaliyeed xaggayga mari allaha kuu sahla rag facahood maldahada iyo dhaga hadalka iyo balaayada iskula sheekaysatiin aniga in yaroo macaan il weydii ana aan ku weydiiyo iga dhaaf waayo habar yar haddaa isguursatiin waa aayahaagii ciduma xamili karto oday sarbeeb wax walba kuugu dhammeena subxaanallah itixaan waa wallaahi kow taas waxaa kuu soo raacsan go'aanka jaf waxaa ku qasbay inuuna sameynin 3 sano inta kuma taalo canugii la dhalaabar iskuula loo diraya 3 sano it's a long time of dating long time waa hadda iyo dan haddowna diyaar ahayn habari waqti uu kaa dhuminooyaa nin waqti kama dhumo 100 sano ku guursa karaa ciduna la yaabi mayso annaga waqti aan ugu socdo afcaad waxaa ku tira walaalo gacaliya aniga diyaaraan guur u ahaye 3 sanana waa kuu taagnaa waxaad keenaa meel la fadhiye tan maxaa kaa talaa hadalka cadcadee aynuu naag af adag lama rabo laakiin see la yeelahay gabdhihina waa kuwaana aniga nafleeyaan ahay adigoo kalaan ahay haddii kale shukaansi iyo ogolaa waan dhihi lahayn adeerow tartanka dhinacaada ka gal why not hadduu ku dhaho okay den awalba waxba meesha kuma haynin waa cad furan raxmad furan naga tag hadhowna waa jeesa telefoonka qabama waxaan doonaan sameynaa waa naga tag qof kale allaa noo sahlay ducada nagu soo kabaan dhihi lahayn why because qofkoona 3 sano la sugaa oo nin shaqaysta ah habari waxaasoo kale hadduu doono wuxuu ku arkaa qof oon diyaar ahayn ama qof oona rabin kugu dul gaaraa meel xitaa qof 3 sano shukaansi soo wado oona haddana aanan hal balaana ku haynin 2021 aa lagu jira haye sheekada 3 sano socoto oo sanadkii afraad u dhalanayso ani waaba ka xishoolahay kaas inuu yahay kaan la sheekaysto waa qari lahaaba ehelka hadday dhahaan haye hebelka war hebel ayaantaa bisma maqlaan dhihi lahay because hebel wax meesha kuma hayo
markuu aniga sarbeeb iyo hadal madaxa dawaqiye iila soo taagan yahay dan ma soconaysa saaxiib maxaa kugu dhacay qofku waa inuu kor isku soo qaado xataa doonimaad ma dhicin nikaax ma dhicin oo arooska usoo tabaabashaysanaa ma laha sheeko loo kuula taagan yahay ma soconaysa saaxiib ayda inuu fasaxo relationshipka oon aniguna rag kale la haasaawo asna dumar kale ha raadsado markaasna waaba ku xumay lahay liifka u gaabina waayo wiilka waa nagu kiciyey xataa ninka hadalka waaweynoo sidii jar in la dheelaa camal meel la soo fariistay gabdhihii waa kuwaana aniga waa igu kacday sheekadan waa xoogaa yaa waa ikululeed sheekadan marka abaayadan ha loo duceeyo habri waa kuu duceynaynaa aniga waa kusoo siiye dhiirigelin siyaabo hoose aan iidu u sheekaysanay khayrkaan kula jeclahay asigaan kula jeclahay laakiin ninka waa inuu xayis ka dhigo 3 sano gabar soo taagan easy maa soo noqo maysa meeqa ukuna kaa khasaarta ma taqaanaa bismillaahi raxmaani raxiim kan hore nooma wado waa inaan runta loo sheego hadalka waaweyn ku dawaqiina hana dhaafiyo amba kula midaanahay hadalkaas ma qaadee malaayada hurdoobi haddaa inta ka hurdooda iga wad gabdho waxaa kula tali leedahay ninbaa meel u taagan waa soo guursada ma dhahooyo meelihii markay dhagaysay soo dhagaysa qof walba haddana adiga maba soo dhagayn kartid mugta qof waa inaad dirsataa qofkan waxaa lasoo siiyey se soomaali oo dhan u wiil jecel yihiin waa wiil fiican waa wiil shaqaysto waa wiil fiican yaa rabo yaa waa gabarta rabta inay guursato gabar muu soo wadaa dadka wax fiican ma sheegayaan nin haddii la weydo waa nin wanaagsan aa lagu leeyahay dumar haddii la weydiin waa wiil fiican gab walaafkeen waa isku ammaanay yaa waa gabarta dadkii waa soo kala carareen asiga haddii la weydiiyo qosalooba uga baxay iyo naag markii la sheegay ragga qoslaaba iska jira mugtaa oo la yidhahda gabar maa soo guursata dhiq haye haddaan soo guursada maxaa ku jaban shaaka kaftani waxaa loo joogin ragga qaar ciilay kugu dilaayaan calaa kulli xaal gabadhan ii waaniya wax iigu sheega shukaansigana waa haad sheekooyinka loo shukaansiya soo socdo oo haad ilaahna la garab galo aniga ma jecli sheekooyin shukaansiga iyo masaarka iyo ma jecli abriire I love you so much inboxkaaga fiiri waanaan kuu dhigay gabdhihii waa kuwan warkaaga waa soo dhex dhigay haye gabdho maxaa dhihi leedeen gabadhan wiilkaanay noo keentay waxa waaye yaa hadduu gabar yaa waxaan dhihi lahayn timaheeda dhinacu ma xirmaa laakiin wiilkan go-aankiisa dhinacu ma caddo meeshaan soo fadhiya waana 2 qofoodoo wacad dhigtay 3 sano ka hor inay isguursanaan hadduu ilaahay ka raali noqdo wax balaanoo noo soo cadcad ma jirto except interview habeen ilaahay keena telefoonka ka kormeera see tahay ma fiican tahay ma soo kacday ma dukatay wax ma cuntay ma sii socotaa waa shukaansi yaroo adigu iska itixaana marka waa kaasaya waxyaabo kale u dheeraa jiro oo personal oo xagiisa laga helin laakiin hee seeliyeela nin Soomaali leh waaye garashadin waa la isku dhaamaaye ilaahay dhexdooda khayr ha dhigo gabadha markay qiyaastay waxay tiri wiilkan waa exactly kii qalme laakiin xarakaadkii hoose maqan laakiin xay howshiisa u dhameeyo ma leh inkastoo shacni dhimanay tahay wax qoran ay tahay oo nikaaxu dhiceen ilaa uu qoran yahay taasna waa inaan ilaahay u deynaa awoodiisa I love you so much gabadha iigu duceeya iyo dhiirigeliya waa inoo iyo komanka hadduu ilaahay yidhaahdo iyo tobika kale hadduu ilaahay idmo cafi caafimaad ya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh